suldaan cabdiladiif maxamed nuur oo loo yaqaano suldaan ka furfuro iyo mid ka mid ah dhallinyarada gobolka Sanaag oo waraysi gaara siinayay telefishinka Saab ayaa ka jawaabay baaq uu hore u diray boqor Faysal Cismaan Faarax kaas oo boqorku kaga hadlayay diriirta u dhaxaysa beelaha wadadega gobolka Sanaag waxaanay dhankooda taageereen baaqa uu hore u diray boqor Faysal. waa kan suldaan cabdiladiif maxamed nuur oo ka hadlaya arrinkaasi. markii ugu horeysay xogta sidaan ku hayo qoraalkan imika aan halkan ka aqriyay dhacdooyinka dhacay markii ugu horeysay gacanta waxa lahaa beesha Idarays Saad Yunus oo dagaal ku qaaday boho oo Faarax Biciida nabadda waa la xidhay saddex wasiir baa hawsha galay oo ka hawl galay oo kala dambeeyay nin walba juhdi u lahaaba dadaal wuxuu u geysan karay waa geystay ilaa sama qadarin hawsha soo aftaranto waxaan halka ka sheegayaa dhacdooyinka halka ka dhacay beesha Saad Yunus markii ugu horeysay gacanta lahay afar jeer oo ka dambeeyay inay gacanta lahayd beeshaan anigu ku abtirsado wada nimankii waa garowshiyo waa geelsina yimaade haddii laga waayay Biciida weyne ma wax laga waayay habar jecladii kale caawa ana ku dhufanaya haal garowshiyo waa geelsi baa la yiri afarta jeer ee danqaabooyinka iyo dhiiga iyo dhagartu ay dhacday iyo naarafuufku cidii doontaaba ha dhigtee ee dhaarta la jibiyay annaga lahayn runtu fanta maaha annaga lahayn habar jeclaa lahayd ilaahay ha nooga meel yeelo tolkiyaha naga cafiyo ciidankii nabadana waanu ka hawlgalaynaa waxaan leeyahay arrinka fadhiga laga kaco bishii barakada lahayd waatana waa gabagabo 10kii cisho u dambeeyay baynu ku jiraa marka ciid la tukado waxaan leeyahay gogasha xaggayga waa taala wakiil baan idinkaga ahay. ugu dambeyntiina suldaan cabdiladiif maxamed nuur ka furfuro iyo Ibraahim Dubbe oo ka mid ah dhalinyarada gobolka Sanaag waxay si wada jira baaq ugu direen beelaha wadadega gobolka Sanaag gaar ahaanna Ceelaf Weyn ee ay diriirtoodu soo noqnoqotay. waxaan leeyahay war hal la gurmado oo nin walbaaba masaalixdiisa shakhsiga ah intuu dhigo danta caamka ha u taagnaado. waxaan ugu baaqaynaa inaan dhiig dambe daadan dawladda waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaadato gurmad la badiyo in dadka lagu kala hagoogto. cali maxamed jaamac cali fahad Saab TV Hargeysa.